السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي waa mahadsantiin Allah idin barakeeyo. Habeenka aan rabo waxaan rabaa inaan la wadaago walaalayga qaaliga aan jecelahay wixii wanaagsan. Saa darteed habeenka aan rabo inaan si fiican u seexdo oo bilaa buuq ah oo dhagta aan dhaho subaxii aan soo kaco anigoo nashaadka iyo farxadda iyo fudaydka iyo jirka qabowga iyo deganaanshaha iyo xasiloonida jirkayga aan ka dareemayo habeenka aan rabo inaan sameeyo. waxaan sameeyay habeenkaas saliidaas ayaan tin ilaa cadho marsadaa. Saliidaas aad taqaanaa waa saliidda Al-Shifa, waa saliidda barakeysnayd ee ummadda Soomaaliyeed ay ka markhaati kacday meel kasta ay joogto in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ummadda ku shaafiyey. Aniga waxaan rabaa inaan la wadaago walaalahayga marka aan marsado waxaan ka helaa hurdo aad qurux badan, jir qabow oo degan. Anaa walba bala ka caawinaya laakiin waxa la igu soo siyaadiso jir qabow. Subax anoo nashaad ah oo faraxsan baan soo kaca anigoo aad u fudfudud, hurdadeedii ka bogtay, hurdadeedii ku nastay ayaan soo kaca. bal waxaan rabaa walaalaha qaaliga ah maadaama odaygii dhammaa ee Al-Shifa idin la wadaagay wax isagu wanaag uu ka helay saliidaas, wala rajaynaya walaalo badan ka qarsooneed inay u iftiinto. bal adigana waxaad ka dareento insha Allah taala inaad nala wadaagto, walaalahana aad la wadaagto. waxyaalaha kale oo ay u fiican tahay waxaa kamid ah madax xanuunka. أنا مركو مدحي حنونه مدحنا سوق ويا كدبنا وان وضع مريا تين اللي عارف مدحي قرن بان مريا جركي قرن كدبنا مدحنا زائد مريا. الحمد لله وحن كهلا مدح مركز يقول دم بس أنكو سحدا فريله الحمد مركز يقول دم بس وحيالا كله في عنته وحكم إذا شلا كله هاي جوكت إيش يقصي ويل كذا أو هالمرقة لا يا درب قصي يقول دقيقة soo u fiirinaya meel maaragtay ay naxday. sidoo kale ay ku tiri habeenkii markuu seexdo wuu soo qaylin jiray oo sasi jiray oo ka nixi jiray ilaa aan dhahay wiilkayga ma autism bahaya. waxay tiri markiiba iigu dambeysay aan wiilkayga habeenkii aan saliida u mariyay marunba ilaahay igu ihaaneeyay oo igu baraarujiyay inaan saliida marsado. waxay tiri maalintiiba iigu dambeysay inaan saliida habeenkan u mariyay baa iigu dambeysay wiilkayga inuu xanuunsado oo xanuunkii ilaahay subxaanahu wa tacaala bartiiba uu kaga reebay. wiilkii maartay hal mar kala jeedi jiray darbiga qabsan jiray meel uu indhaha ugu fiiqi jiray habeenkii soo soo jiray naxdintii iyo murugtii iyo haystay hooyanimada markiiba iigu dambeysay lama soo koobi karo. bal adigana waxa aad dareento qaybta commentiga insha Allah taala nala wadaag. aad iyo aad baan u mahadsantihiin walaalihii qaatay saliidaas ka soo mahadiyana waxaan leeyahay meel kasta joogtaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah idin barakeeyo. aad baan idin jeclahay dad nasaba oo ehel ah oo wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo sharaf iyo qiimo badan baad tihiin. Ilaahay idin barakeeyo saad mar walba Al-Shifa ku xiran tihiin, mar walbana aad nala wadaagtaan kommentiyada quruxda badan ee qalbiga quruxda badan ka soo go'ay. Allah idin sharfo meel kasta joogtaan qalbi idin jecel iyo waxaan idin haynaa mar walba ixtiraam. qofka meesha ugu dambayso la ixtiraamo Allah idin karaameeyo. nala wadaag waxa adigana aad jeceshay insha Allah taala waliba cod nala wadaag insha Allah taala qaybta telefoonka insha Allah taala ka muuqdo meesha aan ku soo qoray hadda insha Allah taala nagula wadaag codka waxaad ka dareento bulshada ayaan la wadaagi doonaa haddii aad noo fasaxdo. mahadsanid.